waxaan si kal iyo laab leh oo akhyaarnimo ah, walaaltinimo ah, soomaalinimo aan idinka codsanayaa facebookgeygii shaaciye one show beejkan please ii kala kiciya. Please beejkan waa deensan yahay. Beejkan xitaa kuwa facebooka muuqaal ma soo gelin kari, way i diidan yihiin. waxayna igu diidan yihiin waxay tahay bacdama isaga oo dhanba maaragtay si aan caadi ahayn uu yahay. soo dadka tusi kara facebook, dhihi kara facebookan waa facebook jira, macalinkiyaa iska leh, shaaciyaa iska leh, caadi ma ahan aad dhihi kartaan waa idinka. so waxaan rajaynayaa muuqaalkan haddaad daawataan in facebookan tirada hadda uu joogo laga yaabo facebook naftirkiisa uu yaabo meeshan soomaaliya soo gashay inuu dhaho ayaan rajaynayaa. wacno wanaagsan daawadayaasha meel walba oad naga daawanaysaan, kusoo dhawaada channelkeeni shaaciye one show oo mal walba halkan aad kala socotaan barnaamijyada arrimaha immigrationka, dv lotteriga iyo weliba arrimaha qaxootiga, guud ahaanba wixii ku saabsan arrimaha buufiska aan idhaahno. haddaadan hadda ka hor magacayga aadan maqlin, waxaa la yidhahdaa shaaciye. channelkaad naga daawanaysaan waa shaaciye one show. haddii hadda aad nagu cusub tahay oad nagu soo biirtay, waxaan ku leenahay subscribe inoo saar, alarmiga ama gambaleelkana furo si aad u noqoto qofka ugu horeeya markaasi halkan naga daawada. waxaan halkan ku ballan qaadaya insha allah daawadayaasha ugu horeeya, qofka ugu horeeya mar walba inaan biin ugu qabto si markaasi dadka ay wada arkaan. waad ku mahadsantihiin daawashadiina quruxda badan ee markasta aad nagala socotaan shaaciye one show. waxaan u gudagelaynaa annagoo markaasi hadal idinku daahin barnaamijkeenii caadiga ahaa. maanta barnaamijkeeni waxaan ku eegeynaa 10 su-aalood oo dadka daawadayaasha quruxda badan ayna soo weydiiyeen. 10kaas su-aalood waxaan usoo xulanay waxay tahay dad badan ayay faa'iido u tahay, idinkana aad ka mid tihiin insha allah. marka straight waxaan galaynaa su-aalaha. insha allah barnaamijka waxyar ayaan ka duubi doonaa barnaamijyadii hore. barnaamijkan waxaan sameyneynaa, waxaan ku dhawaaqi doonaa magacyada dadka su-aalahana soo weydiiyey insha allah. waxaan ku bilaabayaa insha allah nalka xaaji cabdi. waxay tiri maasha allah walaal keep going, anigoo america ayaan wax ka maray, macnaha america ayaan barnaamij u maray, ma haysto basboor, waxaan haystaa qarwada qaxootiga, macnaha kaararka qaxootiga oo kale ma ku xareysan karaa? ha, waa ku xareysan kartaa. soo kaarka qaxootiga meel aad gelisid ma helaysid, hase yeeshee markaa xareynaysid waxaan ku leenahay waxaad u xareynaysaa qaab oo maaragtay qaybta hoose inaadan baasboor haysanin. number 3 su-aasha ah qaybta ahna taabo. markaad baasboor inaadan haysanin aad taabato qaybta hoose, waxaa waaye 1 iyo 2 iyo 3 midda saddexaad aad taabanaysaa. warqadda iyo waxaasi oo dhan oo qaxootinimadana hayso cadaan ayay kaa yihiin, hadhow ayaa lagaa rabi doonaa insha allah. number 2 raggeedii media bro, maxaa dhici karaa haddii 2 sano aan ku xareysto hal baasboor iyo hal sawir taysar ah oo isku mid ah? 2 sano inaad ku xareysato lama ogola, waayo baasboorka caadiga waaye. baasboorka haddii uusan dhicin caadi waaye, hadduu dhaco laakiin kuma xareysan karti. laakiin haddii uusan dhicin waa ku xareysan kartaa 2 sano iyo inka badan. hase yeeshee markay timaado testaraha ama baasboor sawirka waxaa la doonayaa midka ugu badan in 6 bilood uu jiro. 6 bilood iyo wixii ka hooseeya ayaa la ogolaya, laakiin 6 bilood iyo wixii ka koreeya lama ogolaanayo, cid kaa yeeleysana ma jirto. nimco maxamed waxay tiri walaal shaaciye, waxaan ku weydiinayaa dv lottery haddii la iqaato sideen u fahmaa walaal, iga soo jawaab. macnaha haddii selecta lay dhaho sideen ku fahmi karaa in la iqaatay iyo in kale? okay, in lagu qaatay in kale waa fahmi kartaa. waxaana ku fahmi kartaa insha allah haddii ilaahayna gaarsiiyo may 8 2022 ayaa lagu dhawaaqaya. marka lagu dhawaaqo kiiskaagii ayaad meesha dowladda ee checkinka gelinaysaa, halkaasaad markaa gelisid, kadibna code numberka ama confirmation numberka hadda aa haysatid ayaad gelinaysaa. kadibna confirmation numberkaasi markaa gelisid magacaagaa geline, dhalashadaadaa geline, kadibna asaa kuu sheegayo in aad guuleysatay oo lagu soo xushay
iyo inaanan lagu soo xulanin insha allah. Afuufka last king wuxuu dhahay walaal marka hore intaan wax qalday ayaan mar labaad geliyey, maxaa dhacaya? haddii meeshan wax yar inaan aada u faahfaahiyaan rabaa si loo fahmo. haddii marka hore aada wax qaladay oo laakiin confirmation code lagu siiyey oo aad mar labaad gelisid, 90% in lagu soo xesho ama inaad soo baxdo way adag tahay. hase yeeshee wax walbaba ilaahay ayaa ka awood badan, way dhici karaan ama way dhici kartaa in lagu soo xesho. hase yeeshee haddii confirmation code markii hore lagu siinin, laakiin markaa mar dambe aada xaraysatay confirmation code lagu siiyey, kii dambe ayaa shaqeynaya, kaas ayaana sax ku ah insha allah. buraaqo cumar waxay tiri assalaamu calaykum walaal shaaciye, hal su-aal, macnaha 1 su-aalay soo qortay. so hal su-aal ayaan ku weydiinayaa walaal, marka aan xaraysanayo DV lotteriga sawirka gabdhaha ma la qaawinayaa dhegaha iyo qoorta? maya, lama qaawinayo, ma qaawinaysid. dad raba inay madaxooda furtaan, timahooda furtaan, qoortooda furtaan, sidaas sawir ku galaan way jiraan, waana la ogol yahay, lama diidayo. hase yeeshee adoo xijaabkaagii wadatid oo asturan, qoortaadii dhegahaagii aanan banaaneen, garbasaarkaagii wata ayaad sawirka soo geli kartaa, mana lagu diidaa insha allah bilnikran. wax dhibaata kaaga imaanayo ma jiri doono insha allah. lamber 7 abwaan xuseen wuxuu dhahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. walaal shaaciye, magaca marka lagu qorayo sawirka number 8 waxaan qorayay magacii uu sax ah mise haddii la iskugu qaldayay baan ugu qorayay, yacni sidee un bilowga magaca ugu buuxiyey? waxaan u fahmay inaad sawirka gelinaysay, markaad sawirka gelinaysay magaca ku qortay. waxba ma dhibayo, sawirka magac la-aan xataa waa gelin kartaa, magacna waa gelin kartaa, wax kaa dhibaa ilaah abuurtay ma jirto insha allah. ayaanle maxamuud wuxuu dhahay goormee select lagu soo dhahayaa, ma noo sheegi kartaa please? insha allah in select lagu dhahay iyo in kale go-aankaas waxaa la gaari doonaa May 8 2020 ayaa go-aanka la gaari doonaa. markaas ayaad xaqiiqsan doontaa insha allah in select lagu dhahay iyo in select aan lagu dhihin. go-aanka markaasuu imaan doonaa insha allah. Good, my dadkayga, yes, I love you guys, wallahi I love you always, I love you. lambarka 9aad waa cabdiraxmaan axmed, wuxuu dhahay walaal shaaciye, waxaan ku weydiinayaa DS 260ga ma sida DV lottery camal ayuu nasiib u yahay, mise mar weliba aad xareysato waa lagu qaadanayaa? please si fiican nooga faahfaahi, haddii la idoorto haddanba nasiib kale ayuu noqonayaa. DV lotteriga horta nasiibka waa number 1, waa DV lotteriga markaad sameysid applicationka koowaad ayuu nasiib noqonayaa. laakiin kan marna nasiib ayuu noqonayaa, marna nasiib ma noqonayo, laakiin waxay ku kala duwan yihiin. applicationka koowaad ee DV lotteriga waxaa selectiga sameeya computer ayaa go-aanka gaara. laakiin markay timaado DS 260 markay timaado waxaa selectiga sameeya waa shaksi, aniga oo kale, adiga oo kale ayaa sameynaya, kaasoo marka go-aansanaya in lagu qaadan karo iyo inaan lagu qaadan karin. shaksi oo la dhaho officer oo u qaabilsan dowladda in adiga ay ku xulaan, waa sarkaal sare dowladda matala, go-aanka uu qaatana dowladda qaadanayso, oo ah inuu diidi karo iyo inuu ku aqbali karo. kaas markaasaasay ku kala duwan yihiin. maxaan dhahnay DV lotteriga waxaa go-aanka qaadanaya waa computer, laakiin DS 260ga waxaa go-aanka qaadanaya waa qof bini aadin ah, adiga oo kale ah, aniga oo kale ah, waa sarkaal sare oo dowladda ku jira
oo dowladda ugu talagashay inuu go-aan ka gaaro applicationkaagii ka kooban 110 page ayuu akhrinayaa, fiirinayaa, eegayaa, indhindhaynayaa, review badan uu ku sameynayaa, kadib wuxuu go-aansan doonaa in lagu doorto iyo inaan lagu dooranaynin asaa go-aansanayo. marka sidaas ayay ku kala duwan yihiin. okay su-aasha 10aad, Maxamuud Mawelo. Maxamuud Mawelo, assalaamu calaykum walaal, waxaan xaraystay DV lottery sanadkan amase bishaan, jawaabtana waxaa la helayaa May 2022. waxaan ku xaraystay inaan joogo Soomaaliya, haddaan joogaba se waxaa laga yaabaa in aan ka baxo waddanka oo aan waddan kale waxbarasho uga baxo haddii alle subxaana wa tacaala ogolaado. su-aashaan ku weydiinayo waxaa waaye, hadhow haddii la iselect gareeyo isla waddanka aan jooga maxaa ii bannaan ma inaan isla waddankaasi ka xaraysto DS 260 iyo interviewgaba. su-aashaan marka oo Maxamuud Mawelo ina soo weydiiyey waxay u dhacaysaa markaan soo gaabiyo. hadda Soomaaliyaan joogaa, applicationkan sameeyey, waxbarasho ayaan u socdaa, waddan kale ayaan u socdaa. waddanka kale markaan tago, lacala haddii selector la isoo dhaho applicationka waddankaas inaan ku sameeyo, interviewgana waddanka inaan ku sameeyo, caadi miya? Yes, caadi waaye. so in waddankaas aad joogtid ayaad caddeynaysaa. interviewga halkee lagaaga qaadayaa? waxaa leedahay tusaale, Kenya joogtaa, Kenya dhehaysaa. waxaad dhehaysaa Ethiopia, Ankara, Kampala, saasaa qoraysaa insha Allah. Umar Cabdi Maxamed ayaan aadaynaa. wuxuu dhahay, ustaad waad mahadsan tahay, waxaan rabaa inaan ku weydiiyo, markii lay accept gareeyo qaabka loo ogaado oo koodka la isiiyey loo geliyo ayaan u baahanahay inaad ila wadaagto, ama video hadduu jiro ii sheegto, mahadsanid. insha Allah video ma jiro, laakiin waa idin tusi doonaa qaabka loo sameeyo. video aan sameeyey hadda ka hor wuu jiraa, oo wuu ku jiraa halkan youtube-kayga wuu ku jiraa, oo aan ugu talagalay asxaabtii hore. hase yeeshee insha Allah markii la gaaro waa soo bandhigi doonaa qaabka loo fiiriyo. cid walbana maaragtay way arki doontaa, adiga le maahan. hadda su-aashan oo kale aad bay u wanaagsan tahay. dhammaan su-aalaha lana soo weydiiyeyna way wanaagsan yihiin. intaasi waxaan usoo xushay inaad ka wada faa'iidaystaan, anigana aan ka faa'iidaysto, idinkana aad ka faa'iidaystaan. intaan ka bixin waxaan idinka codsanayaa in aad like, share, subscribe inoo saartaan. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.